gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi isagoo ku hadlayo magaca aqalka sare iyo kiisaba wuxuu hambalyo ku aadan aqoonsiga xeer Ciise u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed maadaama hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhaqanka ee UNESCO ay si rasmi ah u aqoonsatay xeer Ciise inuu yahay xeer caalami ah. Aqoonsigani taariikhiga ah ee xeer Ciise ayaa lagu saleeyay sida xeerkan oo u mideynayo bulshooyinka una dhoorayo dhaqanka Soomaaliyeed isla markaana oo dhiirigelinayo dowlad wanaagga iyo iskaashiga, isagoo sidoo kale wax ka qabanayo caqabadaha maanta sida xallinta khilaafaadka iyo dhowrista dhaqanka iyo afka iyo deegaanka. Gudoomiyaha wuxuu u mahadceliyay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhaqanka ee UNESCO iyo dhammaan cid walba oo ka qayb qaadatay kana shaqaysay in qaramada midoobay ee xeerkani ku darto xeerarka dhaqan ee caalamiga ah.